xaaladii ugu dambeysay iyo waxay nihayaa Mursal Muuse oo idhi waan istilayaa warbixintaasaan doonayaa wax yar in la wadaago iyo dilkiisu waxyaabaha uga jeeda iyo qaabku isku dilayo. waxa baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal ama sidoo kale sawirro ah in fanaanka caanka ah Mursal Muuse uu gabi ahaanba rabay inuu istilo sida la sheegay waxaana loo sababay in fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac uu gudaha dalka Mareykanka hadda ku sugan yahay ka bacdi markii ay gabadhiisa ay u soo dirtay fiisa sidoo kalena uu ka degay dalka Mareykanka sidoo kale fanaanka caanka ah ee Mursal Muuse ayaa lagu waday in isagana ay gabadhiisa Hodan Cabdiraxmaan oo markii hore ku doortay in ay fiisa u soo dirto ama ay dalka ka dhoofiso haba yaraatay taasi aanay suurtoobin waxaana la sheegay in fanaanku uu madax maray masayr ah dhanka dhoofka maadaama Nimcaan Hilaac ay gabadhiisa dhoofisay sidoo kalena ay ka dejisay gudaha dalka Mareykanka halka Mursal Muusena uu gabi ahaanba dhex wareegaya Afrika gaar ahaan Somaliland halkaas oo ku sugan yahay maalmihii ugu dambeysay socotay in fanaaniinta ay dumarkoodii hore ay qabeen ay siistaan baasaboor taas oo gabi ahaanba inta ay iska furaan kuwoodii hore ay jacaylka la soo jileen inta badan ay waqti ku soo qaateen ay hadda guursadaan kuwa cusub oo ka yimid dalka dibadiisa waxaana baraha bulshada haystay bilihii ugu dambeysay iyo sanadadii ugu dambeysay in fanaaniintu ay ku fashilmeen inay noloshooda la sii wataan dumarkii hore ay isku caashaqeen ay isguursadeen waxaana ka mid ah fanaanka caanka ah Mursal Muuse iyo fanaanada caanka ah Khadra Islimo gabi ahaan Khadra iyo Mursal oo isku ahaa malab ayaa gabi ahaanba waxa isku bedeshay in ay noqoto dacar taas oo ka dambeysay fanaanada caanka ah oo Hodan Cabdiraxmaan asaatay Hodan oo in badan ku naawaleysay sidii ay u heleed odayga cusub ee Mursal Muuse ayaa hadda waxay u muuqataa in gabi ahaanba ay wajiga wax uu kala kulmay maadaama aanay jirin ilaa hadda sansan dhoof ah ama gabi ahaanba laga dhoofinayo gudaha Hargeysa walow ay jireen in warar hoose oo dhoofka ku saabsan ay soo baxayeen asaatay ilaa hadda aan ma jirto dhoof gabi ahaanba la dhoofinaya Mursal Muuse ayaa la sheegay markii uu ka warhelay in fanaanka caanka ah Nimcaan Hilaac uu ka dhoofay magaalada Muqdisho ee uu ka degay xarunta dalka Mareykanka halkaasina ay ku soo dhaweysay xaajadiisa ay inta badan aanay is arag laakiin nasiib wanaaga oo hin afka furatay iyada jacayl awga u qabto sidoo kalena sida ay ugu guuleysatay inay soo dhoofsato ninkeeda ayaa masayr wali ah waxa uu soo dhex galay fanaanka caanka ah Mursal Muuse iyo xaajadiisa Hodan Cabdiraxmaan oo markii hore naawiliyay in gabi ahaanba uu dalka ka tagi doono maadaama uu baasaboor raacay oo uu gabadhii hore aadka isku jeclaan Khadra ay gabi ahaanba ka tagtay waxaana baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalo sawirro iyo sidoo kale hadal hays ah in gabi ahaanba fanaanku uu istili gaaray maadaama fanaanku uu arkay saaxiibkiisa Nimcaan Hilaac oo ay gabadhiisa dhoofisay oo ay ka dejisay gudaha dalka Mareykanka halkaasi oo si waali ahna loogu soo dhaweeyay waxaana loo aaneynayaa in Mursal Muuse markiisa horeba ay isku raaceen Hodan Cabdiraxmaan in gabi ahaanba ay dhoofin doonto una soo dacwoon doonto taas oo haba yaraatay ilaa hadda dacwadiisa aan la garanayn meesha ay ku dambeysay maadaama waqti badan ay wada socdeen asaatay dacwadna aanay Hodan Cabdiraxmaan u furin ayaa waxa ay u muuqataa in ay gabi ahaanba Hodan khiyantay oo aanay jirin wax cadeynaya in fanaanka laga dhoofinaya Afrika oo loo dhoofinaya dalka dibadiisa halkaasi oo markii hore naawilayay taageerayaasha Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaa waxa ay qabaan in dhawaan ay ka dhoofi doonaan Afrika oo ay tagi doonaan dalka dibadiisa halkaasi oo in muddo ah lagu xamanayay sidoo kalena ay jireen warar sheegaya in ay dhoofinayso Hodan Cabdiraxmaan laakiinse waxyaabaha isweydiinta mudan ayaa ah waa goorma xilliga la dhoofinayo Mursal Muuse iyo goorta uu ka baxayo Afrika maadaama fanaaniinta kale ee uu ka mid yahay Nimcaan Hilaac uu markii hore inta uu guursaday gabadha baasaboor wadatana uu gabi ahaanba raacay jacayl cusubna la jiray ayaa hadda gabi ahaanba kaga dhabaysay in ay ninkeeda u doodo sidoo kalena ay ku soo dhaweyso gudaha dalka Mareykanka halkaasina uu ka dego asaatee riyadii Mursal Muuse ayaa u muuqata in haba yaraatay aanay dhagoobin oo ay tahay wax runtii aad saameyn ugu yeeshay baraha bulshada muuqaalo kala duwan iyo sawirro kala duwan laga sameynayo halkaas oo la soo geliyay maalmihii ugu dambeysana ay dadku ka soo falcelinayeen waxaana arinkan uu ku soo beegmay xilli uu fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac uu ka degay gudaha dalka Mareykanka halkaasina ay ku soo dhaweeyeen
taageerayaal aad u fara badan. Sidoo kale xaajadiisa inta badan uu naawiliyana oo ku seexanaya bogeeda ayaa kusoo dhaweysay gegida, waxaana ka hor ilmeysay garoonka hortiisa, halkaasi oo si waalina ay ugu soo dhaweysay. Isku soo wada duubo dhoofka fanaanka caanka ah ee Mursal Muuse iyo sidoo kale Nimcaan Hilaac ayaa waxaa ugu soo beegmay waayahan maalmihii ugu dambeysay, taas oo baraha bulshada laga hadlayo, waxaanay u muuqataa in saameyn weyn uu ku yeeshay Nimcaan Hilaac dhoofkiisa, maadaama ay hadda soo badanayeen fanaaniinta aadka isku caashiqay, sidoo kalena baasaboorro kaga doorsaday jacayladoodii hore ay nafta la soo jileen ama ay inta badan soo wada socdeen. Hase haatee hadda ay u muuqato in gebi ahaanba waxyaabihii ay filayeen ama uu filayay fanaan kastaba aanu helin, halka qaarna ay gebi ahaanba ay guul ka gaadheen, sida fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac oo hadda libinteedii haya. Hase haatee Mursal Muuse ayaa waxaa lagu soo warinayaa in gebi ahaanba uu ku sigtay in uu isdaldalo, taas oo u muuqata mid saameynteeda leh, baraha bulshadana ay noqotay mid u saameynta badan. Waxaana jira muuqaalo kala duwan oo dad badan ay live ku soo galeen oo ay kasoo sameeyeen fanaanka caanka ah ee Mursal Muuse dhoofkiisa. Waxaanan eegi doonaa meesha ay ku dambeyso iyo xilliga la dhoofin doono fanaanka. Hase haatee mar aan wareysanay ama aan wax ka weydiinay fanaanada caanka ah ee Hodan Cabdiraxmaan ayaa haba yaraatee ka gaabsatay, mana ay sheegin xilliga ay odaygeeda ama sayigeeda dhoofinayso oo ay ka dejinayso Mareykanka, taas oo aan ogsoonahay in ay hadda ku sugan tahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, oo in muddo ah ninkeeda ay kula baashaalaysay, sidoo kalena muuqaalo iyo sawirro kala duwanna ay baraha bulshada ku faafinaysay, halkaas oo maalmihii ugu dambeysayna laga dheehanayay in fanaanadu ay gebi ahaanba jacaylkeedii ay wax iska bedeleen, maadaama fanaanada barta ay ku leedahay Snapchat-ka ay soo geliso muuqaalo aflagaada ah, kuwaas oo gebi ahaanba ay ku aflagaadeynayso shakhsiyaad ay sheegtay inay ka dhammaan la'yihiin, kuwaas oo haba yaraatee aanay sheegin cidda ay tahay iyo cidda ay sheegayso oo ay weerarka ku qaaday. Waxaana sheegtay in weerar lagu hayo dhanka social media, taasina ay u muuqato dagaalka ay fanaanadu iyadu soo qaaday in haba yaraatee aanay muuqan cid ay uga jeedo ama cid gebi ahaanba ay ku mudayso, mana jirto magac ama muuqaal ay gebi ahaanba soo qaadatay oo ay fanaanadu kugu jawaabayso ama kaga jawaabayso hadallada deelqaafka ah ee sheegtay in hawada loo soo mariyo. Hadallada ka soo baxay fanaanada ee maalmihii ugu dambeysay ee baraha bulshada ku faafisay ayaa dadku waxay u fasirteen siyaabo kala duwan oo ah in gebi ahaan fanaanadu ay shacbiyadii ay ku lahayd bulshada dhexdeeda ay hadda noqotay mid gebi ahaan soo wiiqmaysa, maadaama fanaanadu aanay la imanayn waxyaabo cusub oo ay dadku ku raali gelinayso oo ay la soo taagan tahay cay iyo waleecay iyo wali soo aflagaadeeyay. Waxaana ka dambeysay arrinkan ah in Mursal Muuse uu gebi ahaanba ka niyad jabay in Hodan Cabdiraxmaan ay dhoofiso, sidoo kalena baraha bulshada ay ka muuqato in Hodan Cabdiraxmaan ay tahay gebi ahaanba gabadh ku fashilantay in ay wadanka ka dhoofisay ninkeeda, maadaama in badan uu ka dhursugayay. Hase haatee ilaa hadda aanay muuqan wax rasmi ah oo fanaanada ka soo naasacad, sidoo kalena ay u muuqato in gebi ahaan fanaanadu aanay soo hadal qaadinba in odaygeeda ay process u wado ama ay dhoofinayso, taas oo dadku waxyaabaha ay aadka isku weydiinayaan ay tahay. Waxaanan eegi doonaa xilliga ay kasoo jawaabto muuqaalada baraha bulshada lagu faafiyey. Sidoo kalena Mursal Muuse ayaa isagana laga rabaa in sawirada iyo muuqaalada baraha bulshada lagu soo faafiyey inuu kasoo jawaabo. Waad ku mahadsantihiin daawashada channelkeena. Fadlan haddii aad ku cusubtay channelka, subscribe saar, share garee oo muuqaaladaanu soo gelino nala wadaag oo asxaabtaada la sii wadaag adna. Waad ku mahadsantahay daawashada channelkeena markasta.